warar dheeraada ayaa ka soo baxaya weerarka caawa lagu qaaday maqaayadda Pescatore oo ku taalla xeebta liida ee magaalada Muqdisho iyadoo jugta qarax laga maqlay in badan oo kamid ah magaalada Muqdisho. qaraxa waxaa fuliyay qof isku soo xiray waxyaabaha qarxa wuxuuna ka dhacay afaafka hore ee maqaaxida halkaas oo ay afur ku lahaayeen xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya oo ka soo jeeda deegaanada Puntland. maqaayadan sidoo kale waxaa ku sugnaa taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliya General Cabdi Xasan Xijaar. afayeenka xukuumadda Maxamed Ibraahim Macalimu ayaa xaqiijiyay in taliyuhu uu bad qabo. taliyaha booliiska General Xijaar oo aan la hadlay wuxuu xaqiijiyay inuu bad qabo wuxuuna ku sugnaa goobta ganacsi ee qarax uu ka dhacay xildhibaanaduna way bad qabaan ayuu yiri Macalimu. warbaahinta dowladda Soomaaliya ayaa xaqiijisay inuu jiro khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac balse lama sheegin tiro rasmi ah. dadka qaraxan dhaawac uu ka soo gaaray waxaa kamid ah taliyaha saldhigga degmada Cabdilcasiis Liibaan Shidane oo aan si rasmi ah loo ogeyn xaaladiisa caafimaad. maqaayadan Pescatore oo dhawaan dib loo casriyay ayaa kamid ah kuwii qadiimiga ahaa ee ku ooli jiray magaalada Muqdisho gaar ahaan xeebta liida oo ay caanka ku ahayd. waxaa la sheegay in taariikh ahaan la sameeyay sanadkii 1976 inkastoo burburkii kadib dhawaan dib loo furay. muuqaalka goobtan ayaa ah mid si cajiib ah u soo jiiday dadka iyadoona dad isugu jira mas'uuliyiin iyo qurba joog ay inta badan tagaan maqaayadan casriga. si aad mar walba la socoto faahfaahinta iyo xogta wararkeennii ugu dambeeyey ee Soomaaliya caalamkaba fadlan ka mid noqo saaxiibadayda ku xiran boggeennan Facebook.